halkan waxaan ku joognaa guddigii taakulaynta abaaraha ee gobolka Awdal maamulkii degmada Dila oo gudoomiyihii joogo taliyihii saldhigga booliiska degmada Dila waxaan oo soconay inaan taakulayno wixii aan hayno dadkii soo barakacay ee maalkoogii iyo naftooduba israacday oo halkan tuban oo aan raashinka aad arkaysaan aan u qaybinayno oo ay qaarkood u baahan yihiin xoolo way dhaafeen in la daadgureeyo dadka la badbaadiyo ay in badan u baahan tahay in badan waxay u baahan tahay waan ku celinayaa in lagu soo baxo oo dadka loo badbaadiyo la guro waxaan ugu qayleynayaa ummadda islaamka ganacsatada Soomaaliland kuwa gobolka kuwa caasimadda inay muxsiniinta Soomaaliyeed inay la baxaan hantidooda oo ay maalin maanta ka khayr badan meel ay ku anfacayso geystaan oo ay arkaan ay u soo baxaan waxaan ka codsanaynaa ganacsatadu indhahooga inay ku soo arkaan maalqabeenka dadkan ka dhashay inuu soo baxo indhihiisa ku arko ayaan ka codsanaynaa xukuumadda waxaan ka codsanaynaa iyadna indhaheeda inay ku soo dhex marto oo ay badbaadiso dadka xoolihii dhaafeen cidlada yuurara ee dhaxantu laysay ilaahay ka sokow gurmad kale ma hayaan intaasay hayaan ilaahay baase gurmad leh ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu raxmad khayr qaba naxariistiisa ilaahay inuu ku shubo waddankay ka yimaadeen iyo ka aan joognaba ayaan ilaahay weydiisanaynaa dadka deegaanka laftiisu wuu raacay caleentoodii xaabkoogii cawskoogii maanta waa isku itaal waxay ku dhaamaan tahay ay ku jiraan iyo dugsiga ay degan yihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan joognaa waxa weeyaan Dila iyo Tulli dhexdooda degmada Dila ka tirsan saad ogtiin baa shalay aad aragteen baa magaalo cadaan ku qaybinaynay 1500 maantana halkan waxaan ku qaybinaynaa 250 qoys baan ku qaybinaynaa waxa weeyaan ilaahay wax qaban karo horta idina wax ma qaban karto wax xilliga la joogo waad arkaysaan dhulkii sidoo geey waad arkaysaan dadka sidoo u eegayna waad arkaysaan xoolihii sidoo geeyna waad arkaysaan meel halisa ayaa ma taqaanaa lagu jira runtii sidaa imika hadda caaqilka hore haw sheegayna hadda xoolo markaad aragto waxay dibadda laga taagan yahay laakiin waxa u baahan yihiin dadka in la badbaadiyo dadkii la badbaadiyo dadkani waxa u baahan in meel la isku geeyo la dejiyo la ururiyo oo dadkii deegaankoogii iyo meeshoodii ay ku noolaayeen inta la guro dib loo dejiyo u baahan xaqiiqatan way ilaahay doon naxariis keenin 3 bilood oo dambe oo jiilaala iyo xoolaha aan arkayo iyo dadka la arkayay oo wax ilaahay uu karin karo ilaahay ma qiyaas kariyo xaaladda ay adag tahay waxaan ugu baaqaynaa ilaahay baan horta marka hore yaan mataqaanaa baryaynaa ilaahigayow kolka sida loo jilco waa noo naxariisan jirtay ilaahay noo naxariiso ilaahay baana wax bixin kare cid kale wax bixin karaysa ma jirto marka waxa weeyaan waxaan cadaynaynaa in mataqaanaa halis lagu jiro biyo la'aan awal marka hore xoolo loo doondoonay wax laakiin maanta dadkii wax ma haystaan xooloogii way baqtayaan jeebka wax kuma sitaan wixii la siinayna waxba u tari maayaan dhibaatada inaasina waxa weeyaan nimanka waddanka ka shaqaystay ee lacagta ka urursaday ee ka xoogsanay wax bixinaya waxaan maqlaynaa shirkadda la yiraahdo Tilsom ragii maalqabeennada ahaa ee xoolihii dadka dhiigooga urursaday baan anigu waliba odhanaya ee shaqaysanayay 26 sannadood waddanka ka shaqaysan jiray waxay bixinayaan anagu markeen dadkiina waa kuwa baqteeya ilaahayna ka yaabo araguna ma sad weeyaan aragtida la arkayaana waa sad weeyaan bal yimaado arka dadkiina sawagiin xukuumadana waxaan ka codsanaynaa xukuumad fareegiba ka baxdo xukuumadda yaro jilax samayno ahayne laakiinse waxa weeyaan madaxdu ha tagaano samsam gabadh la yiraahdo meelaha ku aragnay kuwa kalena waa bal dadka soo arkaan oo soo eegan
أنا وجودي عبارة قبل كأول عطانا وانو ددالنا وحيان هذه خريطة كورنا وساسا نسوق كارسيننا أنت صارنا عطانا وضعي وسوق كارسيننا لكن قالها أيوه حكم كيو مامل كيو هذا عالم كيو حاجة يعركيسيو دين عنا حجاني تعال سوق بدو بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد كل كوه الرئيسة إلهي بنورته مهد نقينا وحلو مهد نقو ولو حمديو إلهي بالي إله هذا كم مهد نقينا ربك يوم إله ربك يوم كمان مرة بنكوسي السنة إله النحريس هذا عمل كيجنا إله النبو قادم إله النحريس هذا بنكوي السنة أنت كل كان كجود وحوي هل كان ما أنت هنجوبنا وحويان تجمد الدلا يو تولي أنت قد حيسا أيان عديد كمان أنت أيان جوبنا هل كان جوبنو ما أنت ومدة جوبت هل كان كنولي إلا وقتي حقا لقى يمدي جوبنا وندحس عني كل كي هوري dadkaasi waxay u baahnaayeen busta biyo waxaasay u baahnaayeen xooluhuna waxbay cunayeen waxa la wixii maanta waa isla wada xaarif kii deganaa iyo kii kale waa isku mid waxaan ku yardarayaa habeen hore nin baan TV-ga burca ka arkayay nin leh ma jirta abaari galbeede nimanka gudida abaaraha iyo dawladduba xagga galbeed unba u yaacayaane soo guuro oo burca soo dago oo kaalay oo dadkan arka nin habeen hore la TV-gan ka arkay haddaba waxaan leeyahay ninkaasi waxaan u malaynayaa inuu aqalkiisu ka soo baxay oo dibadda uga soo bixin waayo galbeed maanta roobkii hore gusooraa ku da'ay karanisa kuma din roobkiisa maanta abaar sida ay ma u jirin dadka burco iyo halka ilaa Puntland qafiirkeeda iyo laascaano dadkii ka yimiday maanta bartaan joognay joogan dad maanta galbeed baa dadku waa isku wada mid ka bari joogiya ka galbeed jooga maanta waa tabkalaatay way ka inta horta waxaan leeyahay isaga bal horta aqalkaaga ka soo baxo horta bal dadka soo marmar intaas ka ayaan leeyahay habeen hore hadlay kaana kalena waxaan leeyahay takaltaa intaan ka gudbo waxaan leeyahay war ilaahay baa lagu baahi baxaaya dadkii ugu liitaa imika waxaan dhex tagnay iyadoo gudoomiyaha uu nala joogo malaha aan tira gaadhay baan dhex joogsanay ilaahay nafta galiyaan ku dhaarteen neef caawa bir laga gowraco iyo neef saylid laga midnaba malahay dadkaasina daha kuma jiro aroori bay joogan sidaas ay ka misaysiin ilaa halka garbahaad kulkaan joognay iyo halkaan joogno waa isku mid weey waxaan leenahay war dadkaasi taakul u baahan yahay kuwa dibadda jooga kuwa gudaha jooga ilaahay intoo laga yaabo wax maanta dadkaasi waqayl u baahan yahay gurus buu u baahan yahay qaxooti loo furu u baahan yahay adduunyada horta waa laga farxash waxaan leenahay war dadka loo soo gudmado war dadka ma haday bari jiraan iyo haday galbeed jiraan dadkii maanta xoolo waa laga farabaxay ha loo soo gudmado marka hore waxaan hambalyeeynaa guddiga abaaraha ee heer gobol oo runtii dadaal badan wada intii ay woodeeda ay dadaalaysa oo dadka dhex socota shalay walaal magaalo cad bay ku qaybinayeen ilaa 1500 oo qoys maantana waxay joogaan dila habeen iyo dharar bay ku fariistaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inta haddii aan ka imaado